بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحلقتنا عشر كانت تضباط عشر ذي سلسلة دي تحنها هاي يحجك وحنو تي اللي حتكسوا بلنقادنا إنه كقاعد لده نقاب كحجك اللوجت وحنا صوشة إن حجك يا عمره قاب جود الشدة إنه واحد بدن وذاقان لكن حجك وحديريه طبعا سيدا هذا قابك اللو نظامية اللو هبيي دادك جماهير تودي انت بدن إن يرو دو مال مردا ما كتمد أما رير مكا لفتو ذا كميدا هذاني مالك السديدات با مكا لغا أنببحا حج كان لغا هذا بشد الحجة وسنة كان جمعادي باللابطي شالي أحيد markii sabtida maanta sabtideeda kale la gaaro waxaan leeyahay jumcada soo socota marka la gaaro ayaa waxaa leeyahay yawmu tarwiya waxaa looga jeedaa maalinkii biyaha laga dhargi jiray dhulka ooman u ahaa ceelal biyo dhinaca Mina iyo Musdalifa iyo Carafana ma jirin xoolahana waxaa biyaha laga dharsin jiray oo la waraabin jiray biyahana la buuxsan jiray oo la qaadan jiray oo la sahay qaadan jiray maalinka sideedaad maadaama maka laga ambabaxayo marka maalinkii biyo ka dharga way hadda laakiin Mina iyo Musdalifa iyo Carafaba tubooyinkii biyaha ugu tagaysaayo biyana qaadato uma baahnid gaara gaadiid iyo xoolo labatana ma jiraan maalinka sideed marka la gaaro sideed bisha Dhulxijja yaa qof walba halka uu degan yahay buu isaga diyaarinayaa inuu xajka xirto sida aynu ku soo maray umrada waxyaabaha mamnuuc oo dhar cadar leh iyo dharkii ragga mamnuuca ka ahaa ama kii dumarkoo indha shareerka iyo galoofiskii mamnuuca ka ahaa way bannaanka iska dhigayaan markay is diyaariyaan waxaa sunno wanaagsan in la qabaysto markaase waxay niyoonayaan xaj inay xiranayaan markay niyoodaanna xajkii bay xiran oo labbayka xajan ilaahu xaj baan xirtay bay dhahayaan luqadii lagu dhahaba way asixi carabigu qasab maaha waxaa sunnaa duhurka ka hor in Mina la tago si Mina loogu tukado salaada duhur casar maqrib cisha iyo salaad subax salaadaha waa la gaagaabinayaa dheer duhur iyo casar iyo cisha laakiin salaad walba waqtigeeda lagu tukanayaa duhurka waqtigiisa la tukan isagoo 2 ragcadood casarka sidoo kale maqribka waqtigiisa la tukan isagoo 3 ilaa maqrib lama gaabiyo ishaga isagoo 2 la tukan waqtigiisa subaxna labadeedii baa waqtigeedii la tukan waa sida sunnada habeenka Mina in la bariyay sunno way waajib maaha qofkii ka tagana waxba dambaabi maayo daalacna loo raacan maayo sida sunnada waagu markuu bariyo qorraxduna soo baxdo soo bixitaanka qorraxda in lagu suga way saaday u soo baxda in la dhaqaajiyo oo Carafa la aado ogow maka waxaad uga ambabaxday dhinaca bari Musdalifana dhinaca bari bay weli kaasii jirtaa Carafana way kasii shishaysaa maalinta Musdalifa jidkaa kaa maray maahane wax idinka dhaxeeya oo camalood ku qaban ma jiro waa la gudbi sidaas ay sida sunnada hadda laakiin sidaas maaha ana waxaan leeyahay waqtiga Mina laga baxayan ka hadlaya hadda xamlaad baa lala socdaa kooxaha lala socdana qorituur bay maka ku galayaan ka bixitaanka maka gaadiidka dadka qaadayay markay Mina tagaana qorituur bay galayaan sida loo kala horeynayo qoysleysla habeennimada habeen barkiiba salaada subaxba Carafay sii joogaan qolana casarradii duhuradii gadaashoodii casarray imanayaan qofku wuxuu ku qasban yahay kooxdii uu la socday iyo waqtiga qorituurku gaadiidka u soo baxay inuu raaco ku qasban yahay waxaa laga tagay waa un sunno duruufta saxmad iyo ciriirigu ay keentay qofka niyadiisu wanaagsanaatay insha Allah taala ajirkeeda ciwada ilaahay inuu siinayaan rajaynayna markii la ambabaxo Carafa la tagayaa sida fiican waxay ahayd ilaa duhur soo galo inaan gudaha Carafa la gelin oo duhur iyo casar la tukado la israaciyo hadda laakiin khaymadihii iyo teendhooyinkii la degaya number bay kala leeyihiin gaariga ka qaada Mina teendhadii adiga kooxdaadu aad ku qoraydeen ku hordajinaya Carafa bartankeeda dhib ma laha halka markii Carafa la tagay salaada duhur ay soo gasho duhurka iyo casarka laba ragcadood la israacinaya duhurka 2 ragcadood la tukan
kadib casarkaa laba ragcadood la tukan kadib dadka waa loo khudbayn tuguud ka qayb gashayaa iyo intiina gaarka ah isla tukataayoo axkaamta carafa iyo xajka iyo caawa soo fool leh baa dadka loo sharxayaayoo loo sheegayaa intaa wixii ka dambeeya waa maalin duco iyo allabari iyo dikri ilaahi waaye maalinka waa maalin fadli badan nabigeena sal allahu alay ali wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi maalinka carafa ma jiro maalin ka badan ama la mid ah intuu ilaahay dad naar ka xoreeyo ma jira maalin ay ka badan tahay naar dad laga xoreeyo maalinka carafa maxaa la iskaga xoraynayaa dadaalka iyo cibaadada iyo camalka la qabanaya la iskaga xoraynayaa maalin dalxiis maaha buur baan soo fuulayo sawiraan iska soo qaadayo waan soo sheekaynayo waan fadhi ku diriri iyo hurdaan uga bixi iyo cunto iyo cabbitaan iyo shah baan daba wareegi iyo waxay dani kaa fursan weyda maahane maalin warwareeg iyo socsocod ma aha maalin dalxiis iyo haasaawo iyo hurdana ma aha nabiga calayi intuu intaa tukaday buu xilligaa ilaa qorraxdu ka dhacday ducayaa la bari buu ku jiray saa darteed waayo maalinka ugu badan maalin ka badanoo ilaahay dad naar ka xoreeya ma jiro mar labaad nabigeena alay slam wuxuu ina yidhi maalinka carafo khayru ducaa'i ducaau yowmi carafa ducaa ilaahay la barya waxaa ugu khayr badan ducada iyo allabariga maalinta carafa wa khayru maa qultu ana wannabiyuuna min qabli waxaa ugu khayr badana aniga iyo nabiyadii igu horreeyey ahnana laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir waay in dikrigaa lagu celceliyo oo la akhriyo kadib wixii khayra iyo ducay iyo allabari oo dhanna waa maalinkaa khayr ka badan way hadduu qofku mar yar daalo oo xoogay daqiiqadii iyo nusaac iyo yar nasto si u xoogaystaay dhibaato ma laha laakiin wakhtigoo dhan hurdiin lagu dhumiya haasaabo looma baahna fadhi ku diriraya dembi iyo xanna iska badaa iyagu markay qorraxdu dhacdo maalinkaas qofkay seegto oo maalinta iyo habeenka soo socda aan marnaba cagta iyo cagta saarin carafa xajkaa uma jiro alxaju carafa baa ka hoos baxdoo nabiga ka sugan sala allahu aleyh waalih wasalam markay qorraxdu dhacdo baa la soo gadoomayaa musdelifaana lagu soo laabanayaa oo la soo aadayaa haddii musdelifo la soo aado sidii qori tuurkii un weeyo dadka qaarna casar bay soo baxayaan kadib dadka qaarna habeenkii saqdhaxay ku gaari sida sunnada waa maqribkii inaad soo dibdhigto oo maqribkii iyo cishaho laba ragcadood iyo maqribkii oo saddexdiisiia musdelifo markaad timaadda aad tukata wey haddiise ay dhacdo xaggan aad ku daahdo ama nasiibkaagu ay noqoto inaad qabla almaqrib soo baxdadoo maalintii joogay dhib ma laha halkaa aad joogto cishahaaga iyo maqribkaaga ku tuko intay kaa tegi lahayd ilaan cishaha habeenka bartamihiisa haddii la gaaro kadib cisho ma jooga mise wuu baxay masale khilaaf iyo muran ku jira weeye haysgelinin tani sunno weeye hadday suurageli weyday faradka waajibkaa muran hayska gelin carafadaada ku tuko haddii gobolku dhaco macnaheedu ma aha cibaadadii waa laga baxay oo buuq iyo bulaan ha la gara maaha inta kaalintaadii laga gaaraya dikriga iyo cibaadada iyo taacada acmaasha xajkaad weli ku jirtaa marka musdelifo la yimaado waa la degayaa qofkaan soo tukanay wuu tukanayaa waxaa wanaagsan in la iska seexdo shalay minaa la soo aadoo lama seexan maalintana carafaa la joogay waxba lama seexan birrina acmaasha u badnayd baa la qaban caawoo kale habeen nasasho loogu talagalay bay ahayd laakiin waxaa laga yaabaa inta badan dadku ma haleeli doonaano dadkiiba aad uga fara badan goobihii waana la iswada dardarayaa dadku markaa laba qaybood bay noqonayaan qaybta xanuunsan dumarka carruurta yaryarka ah dadka waayeelka iyo inta wehelka u haynan ka maarmin haddii habeenkii bartamihiisa la gaaro inay hore isaga soo socdaanoo maka iyo mina ay soo aadaan baa loo ogolyahay dadka inta kale inay habeenkii ku dhammaystaan oo waagu ugu beriyo xuduudda musdelifiyawan ka soo bixin ay salaad subax ku tukadaan baa waajib ku ah qoladii horey u soo baxday xataa salaadda subax maka hadday ku tukadaan dhibaato ma laha maalinka waana maalinka dadka kale ciidda u ah way soo baxayaan jamratulcaqabaa la imanayaa camalka la samaynaya labada qolo kuwii soo hormaray iyo kuwii soo daahay waa isku mid wakhtigaa uun saxmadda iyo ciriiriga qoladani inay ka horreeyaan
maadaama dad ducafa iyo dad xanuunsan iyo dad taag daran iyo dad caawinaya ay yihiin inay dadka ka hormaraano inay saxmadda iyo ciriiriga ka horreeyaan baa loogu talagalay minaa la imanayaa jamratulcaqaba ama ta ugu dambaysa jamratulkubraa la yidhahda xagga maka ugu xigta xuduudda minana ku dhammaataa baa 7 dhagax baad dhaxda ama musdelifo ka soo qaado ama mina ka soo qaada minaa fiicnayd laakiin khaymadiiyo laami baa laga wada dhigo inaad weydaaba dhici karta habeenkaa musdelifo aad joogto 7 dhagax soo qaado wixii hadduu kaa gara mara midna qayb yaroo dheeraada ku soo darso intaa aad maka ka xidhatay xajka ilaa subaxa aad soo kallahdood markii mina soo aaday waxaad ku dhawaaqaysa waa labayka allaahumma labayka labayka laa shariika laka labaykaad ku dhawaaqay dikriga ugu khayr badan ee la yidhaahdana intaa sida haalibka ah waa midkaas afdalu lxaji alcaji wathaju nabi alai salaam talbiyadaa kor loo qaadayo iyo xoolaha la gowracaya waxyaabaha ugu fadli badan xaji ka mida markaad jamaraadka timaado takbiirta allaahu akbar baad dhihi dhagaxuna waa inuu yaryaraadaayo wax labadaa farood dhexdooda geli karoo wax lagu finiini kara waa inuu yahay 7 meesha godka aad la eegan waa inay ku wada aadaan hadduu mid gara maro kaa kuuma jire waa mid kale inaad samayso 7 markaad ku dhammayso waxaa xigaayee sunnadii dawaafkii iyo kacbadii baad aadi inaad ku xijisiiso waa sunno laakiin rukniga ka soo socdaaya waa dawaafkii kacbadaa la soo aadayaa sidii aan soo sheegnay cumrada ku soo marnay baad u dawaafi 10kii 6aad ku noqon kadib markaad dhammaysa sacyigii safiya mar waad aadi sidii 10kii 6aad aan ku soo marnay dib ugu noqo haddaadan dhegaysan baad iyadana samayn markaad dhammaysa timihii xiiristii iyo gaabintii isla sidii 10kii 6aad aan ku soo sheegnay baad samayn waad xalaal noqotay halkaad deganeed iskaad dharka iska soo bedel gabadhu galofis iyo nashareer hadday rabto ha soo qaadato cadar ha la marsado labadii xiliya xaas isu hayd isu xalaal ahayd waa isu xalaal intaa wixii ka dambeeya camalkii xajkii arkaantiisii waa dhammaysatay xoolihii la qalaya adiga inaad qasha laguma ogola meelaha waxaa la wakiishaa kuwa qala ama dad dhallinyaraad arki doontaa oo dadka jaamicaadka dhigtaiyo waddanka deganoo soomaalida oo kooxah oo hawshaa kaa qabanayo xogay khidmadna ugu jirtee si shaqo badan bay kaa guddoomayaan aduu aadan qaban karin wakhtina u heli karin aan laguna ogolaynba camalka xajka markaad dhammaysato maalintaas meeshaad deganeyd baad ku noqon halkaagi baad isaga soo nasan dharkaad iska soo bedeli waad soo qabaysan habeenkii dib baad mana ugu soo galban habeenkaa ciidda ka dambeeyey ee bishu 11 tahay minaad baryi gelinka hore waad iska joogi gelinka hore haddaa intaad dhaadhacda kacbada soo dhawaafta dhib ma laha ama habeenadii aad soo dhawaafta mar ka mida laakiin habeenkii inta badan waa inaad mina joogto qayb ka mida kadib subaxa dambe markay duhurka la gaadho ilaa habeen badhkii baad 3 meelood ee la tuuranayo ta kuu soo xigtaad ka bilaabi 7aad ku tuuri ta labaad baad xijisiinoo 7 kalaad ku tuuri tii 3aad ee maalinkii 10aad aad marteena 7 kalaad ku tuuri maalinkaa 11aad waa 20 dhagax oo inay ku dhacaan la rabo qayb dheeriya qaada wixii kaa garamara inta waa inta waajibkee lagaa rabo sida sunnada ah marka ta u horraysa aad timaado dhinaca biixdaa ka mar kadib ku jeedso 7 ku tuur dhinaca biixda oga yar durugo waxoogay ducayso alla bari kadib midda kale aad dhinaca midig kala wareeg ku tuur 7 dhinaca midig u dhaqaaq iska ducaysa xabaar kadib soco tii kale bidix kala wareeg ku tuur soo noqo markaa ducaya istaag ma leh intaa waa sunno laakiin saxmadda xajku dhinacaad rabta inaad marta kuu saamixi maysee hor iyo gadaal kii kuu fududaadaba samee dadka saxmadda ka cararaya waxaan kula talin lahaa in ay meeshan la tuuraya inta ay dhaafaan dhinaca kale kaga yimaadaan way saxmadda dadku dhinacan laga socdaiyo labada dhinac bay u badan haddaa intaa dhaafta ku soo jeerayso geeskaad ka timid mooyeenka dhabarkiisaa ka soo jeeraysay xagga makaxiga badanaa way ka saxmad fududdahay aayar meel u dhow intaad tagto dalaq inaad ku siisaa laga yaaba allahu akbartiina halmaamin dhagax walba allahu akbar aad la leedahay maalinkaas wixii ka dambeeya camal kalood qaban ma jirto haddaad magaaladii iska aadayso kacbada soo dawaafayso soo noqonayso waa lagu ogolyahay habeenkan labaadna inta badan waa inaad mina joogto
maalinka 12aad iyadana sidoo kale duhur marka la gaaro inaad 3dii tuurato way markaad tuurato kadib intaan qorraxdu kuugu dhicin haddaad rabto inaad iska tagto labada maalmood way kugu filan tahay waa la ogol yahay qorraxdu yeena kuugu dhicin qorraxda ay kuugu dhacda berri duhurka kadib 3daba inaad tuurato way qorraxdan kuugu dhicin haddaad iska tagto oo iska galbato dhib ma laha wax aad halmaantay hadhow haddaad u soo noqoto haddii alaabtii ka soo tagtay inaad baxdana aad doonayso qorraxdana kugu dhacdana aad ka yaabaysa haddaad noqoto waa la baxaa marka hore markaa la iska aadaa dhowaan fiidkii markay tahay baa alaabtaada la soo doontaayoo la iska qaata ilaan markaa camalkii waa kaa dhammaaday adeegaad soo doonatay waxba xukum cusub keeni maayo haddii aad maalinkii 3aad sugtana duhurka wixii ka dambeeyaa tuuran camalkii xajku waa dhammaaday inaad kadib iska noqoto oo markaad galbanayseed marka ka ambabaxayso tawaaful wadaaci la timaado intaan baa kuu dhiman cashirkeenna 7aadna intaasuu ku egyahay tan cashirkii 8aad isaga imanayno oo su'aalaha u badan ee soo noqnoqda inta ila muhiimsan aan soo ururin doono waxaan kaga tagay sidaa nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma ku dhibanayd fahamka erayo badan oo luuqadda ingiriisiga ma aragtay in akhriskaaga caqabad ay hor taagan tahay macmiil si aad taasi u xalliso adeegga aqoonmaal waxaad ka helaysaa barnaamijka ereyga maanta word of the day kaasi oo aad maalin walba ku baranayso erey cusub oo macnihiisa iyo adeegsigiisaba lagu sharaxayo bil walba dhammaadkeeda gal imtixaanka bisha ee ereyadii aad baratay oo ku guulayso abaalmarin qaali ah ereyga maanta waa fursadda kobcinta kaydka ereyadaada luuqadda ingiriisiga si aad u isticmaasho qor ereyga word una dir 150